maanta shir jaraa'id magaalada Muqdisho ku qabatay General Zakiya Xuseen oo ah taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed waxayna sheegtay in magaalada Muqdisho ay ku jiraan gawaari looga shakisan yahay in qaraxyo ay ku raran yihiin loogana digayo shacabka waxaana ay soo bandhigtay taliyaha sawir ay sheegtay inuu yahay nooca gaariga baaritaan ay warbaahintu samaysayna waxaa lagu ogaaday in sawirkaasi uu shabakada Google-ka horay ugu jiray linkiyada ayaan sidoo kale la wadaagnay bulshada isticmaasha Facebook isla markaana ku xiran page-ka KNN si ay u arkaan sawirka taliyaha oo ay ku sheegtay inuu yahay nooca gaariga ayaan sidoo kale ahayn halka gaariga uu yaalo gudaha Soomaaliya sidoo kale waxaan rabnaa inaan bulshooyinka Soomaaliyeed ku wargelinaa inay jiraan gawaari nooca Toyota Prado Land Cruiser-ka loo yaqaan oo aan ka warhelnay in argixisada doonayaan bulshada ku halaaga baabuurka noocaneetu ayuu eegyahay waana soo dhigi doonaa dhammaan baraha bulshada waxaan doonaynaa in maxaan ku yiraahdaa shacabka ee horta feejignaan ka yeeshaan baabuurta noocan u eg meesha ku arkaanayso inagu soo wargeliyaan iyagoo u tagay saldhig ugu dhow ama askari ugu dhow la wadaagay ugu dambeyntii waxaan kaloo idin wargelinayaa in maalmaha soo socda la adkeyn doono baaritaanka iyadoo ciidamadeena ay ku shaqeyn doonaan xogo la hubo oo ay qaybahooda sirdoonka ka heleen sidaas darteed waxaan codsanaynaa in la yareeyo adeegsiga gawaarida raaxada ah ee gaarka loo leeyahay waxaana dhawaan soo saari doonaa awaamiir u gaara gawaarida yaryar oo raaxada oo ku socda magaalada muddooyinkii u dambeeyay waxa magaalada Muqdisho ka soconaya howlgal gaar ah oo ay sameynayaan ciidamada booliska balse sidoo kale dadka ku xeelan arrimaha ammaanka ayaa waxay sheegayaan in booliska aan looga baahnayn in wararka noocan oo kale ah ee qaraxyada xogtooda la helo lala wadaago warbaahinta iyo bulshada inteeda kale iyagoona sabab uga dhigay in dadka ka dambeeya qaraxyada ay gaadiidka